That parting kala qaybinta waxay ahayd waxa ugu weyn ee aan dhihi karayo waxaan loo dulqaadan karin ay ahayd 70 sano ka hor ayay ahayd markii Hindi iyo Pakistan ay kala go'een. Raj waxay kala fogaadeen jacaylkiisa ugu horreeyay. I was crying. Waan oynay iyaduna way oynaysay. Markaas ayaan si tartiib ah aan u kala tagnay. Xaqiiq waxaan arkay ilaa aan ka mirqoynay soo fiirnaysay. dhibaatada uu geystay dagaalka diimaha awgeed waxa uu malaayiin ka barakiciyay hoygoodii. Hinduuga iyo Sikhs waxay u soo qaxeen Hindiya, muslimiintana Pakistan. Raj waxa uu ka soo jeeday Hindu halka Yasmin ay ka soo jeeday Muslim. waxaan ku kulmi jirnay tarees, waxaan shida jirnay shumac oo noo dhaxayn jiray si aan soo aragnay kadibna waan sheekaysan jirnay annagoo gacmaha haysa. intaan labadeeda gacmood isku qabto ayaan dayaxa ku aadi jiray. waxaan dhihi jiray maalin farxad waan wadaagayna. One day I'll give you this moon. waxay ahayd barakactii ugu weynaa ee taariikhda soo mara. Raj iyo qoyskiisa waxay ka soo barakaceen Pakistan iyagoo soo maciin baday India. waxaan rajo wanaagsan ka qabnay jacaylka dhabta ee naga dhaxeeyo in mar un si wada jir aan u noolaanayno deedna aan isguursanayno. Raj wuu guursaday dhowr sano kadib laakiin Yasmin muu calfan. Geeta miyay maqlaysaa xaaskayga? sanad dheer kadib markuu Pakistan ka soo qaxay Raj wuxuu Geeta kula kulmay Hindiya. durbadiiba markaan ishu ku dhuftay waxaan dareemay in ay la mid tahay Yasmin. xagga muuqaalka waxay isku mid ka ahaayeen iyo kalarkaba xitaa timaha Yasmin. si tartiib ayaan iskugu soo dhaway. ugu dambeyn 1958 ayaan guursaday. isagaa isoo raadin jiray, waa igaadgaadi jiray, wuu ii imaan jiray, wuxuu i dhihi jiray ibar luqadda Hindi, kadibna sidaas ayuu iiga daba dhihi jiray. wuxuu ahaa nin barashada Hindiga ay ku adag tahay. waana selnay. Raj waxa uu Pakistan ku soo laabtay 10 sano kadib. markaan ka degay aeroboorka ee dhulka aan tagay waxa ugu horreeyay aan sameeyay waxay ahayd waxaan qaatay ciid waan shumiyey kadibna wejiga ayaan marsaday. waxa uu booqday gurigiisii iyo meesha ay ku kulmi jireen Yasmin ee Teresa. xaqiiq ma iloobi karo Yasmin. haddii fikir iyo wax dheeri aad hayso aad is leedahay barnaamijku way ka dhiman yihiin waad noogu soo gudbin kartaa iyo mawduuca aad danaynayso. assalaamu calaykum.